waxaa kaloo jirto baadiye kale oo aan dhihi karo baadiyana maaha laakiin waa magaalo waa badda jinniya nina jinni aroosaayo naag jinni oo aroosaya ilmo badanay u dhalaysaa maalin kasta waa ama waa imaane ama waa booqane sheekooyin noocyadaasa dadkii oo magaalada jooga loogu sheekay jiray may xalal badanaa jiro horta weligaa allaa caqabad laysma hordhigo haddaa caqabad is hordhigtid wax ma samaynaysid caqabadna haysatana ma leh waxaa keliyana haysto inaan wax barano bes bulsho sheeko lahanahay sheeko dhaqameed oo sheeko xiriirayso Cabdinaasir ka soo sheekeeyay taa kuma noqonayo marka waxaan rabaa bal sida la isku qabansiin karo filinka ama saneemada iyo sheekadeena inaan bal ka sheekaysano hadda tusaale waxaan soo qaadaa filimkii la dhahay RRR oo ay sameeyeen hindida qoladan Teluguga waxaa lagu sameeyay intaasoo xayawaan boqolaal xayawaan imagine xayawaankaas inaysan ahayn xayawaan sax ah kulligiis wuxuu ahaa CGI computer generated visual effects marka dhalinyaradana waxa loo baahan yahay in horta bartaan visual effects deegaan walba wuxuu haystaa wuxuu aaminsan yahay u gaar ah ciyaar u gaar ah sugaan u gaar ah taasna inaan darisno oo baxsi sameeyno caatana waa ninka magaalada nala joogo magaalada nagu haayo oo asal isla shaqeeyaan filmaan badan oo sameeyay qaar badan haduu soo wadaa waxaan u sii galeynaa mowduuceena ciwaankiisa wuxuu ahaa sheeko xiriirooyinka iyo doorka film sameynta ka qaadan karaan si kooban dadkeena filmada daawado markaad filmada daawanaysaan waxaad arkaysaan sheeko xiriirooyinka Greega iyo sheeko xiriirooyinka Afrika iyo sheeko xiriirooyinka aad u kala duwan baad film marka daawanaysid baad ku arkaysaa iyagoo film laga dhigay oo hab fantasy loo sameeyay ama hab historical loo sameeyay qaab kala duwan loo sameeyay marka bal inagu maxaynu ka galnaabeen isweydiinayna ilaa anagu bulshanahay bulsho sheeko lahanahay sheeko dhaqameed oo sheeko xiriirayso Cabdinaasir ka soo sheekeeyay taa kuma noqonayo marka waxaan rabaa bal sida la isku qabansiin karo filinka ama saneemada iyo sheekadeena inaan bal ka sheekaysano su'aasha ugu horeyso waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Caato oo marka aan rabno inaan sheekooyinkaas aan film u bedelno ama aan film ka sameeyno maxaan nagal rabaa aba tusaale xagee tahay inaan ka bilaawno sheekooyinku waa leenahay qaar way qoran yihiin qaar ma qorna intee laga bilaabaa film sheeko xiriir ah oo Soomaali ah in la sameeyo hor sheekada xiriirta ah ee la sameynayo sheekadii oo dawaca iyo diin iyo xaaskii carabka la'aa iyo diiqa yeeray iyo haday tahay oo sheeko qusayso xayawaankaas sida hadda yarka uu sheegay barleyda ama sheeko ay tahay legends dad oo ama myth ay tahay wax oo dheer oo kale hadda waxa waaye ilmaha lagu cabsiyaa juudaan ana lagu cabsi jiray qor ismaris maxaa la yiraahdaa Arraweelo oo nimanka castration ku sameey jirtay sheekooyinka Soomaalida waxay horta u badan yihiin baadiyo badankood sheeko barleyda iyo sheeko xiriirta waxay ka imaatay baadiyo sheekooyinka markay ka imaadaan baadiyaha noocyo kala ah laba baadiya jirto baadiyaha beerleyda iyo baadiyaha xoolo dhaqatada waxaa kaloo jirto baadiye kale oo aan dhihi karo baadiyana maaha laakiin waa magaalo waa badda jinniya nina jinni aroosaayo naag jinni oo aroosaya ilmo badanay u dhalaysaa maalin kasta waa ama waa imaane ama waa booqane sheekooyin noocyadaasa dadkii oo magaalada jooga loogu sheekay jiray anaka waxaan nahay dad oo magaalo ku dhashay marka marar qaarkood sheekooyinka baadiyaha xiriirka alla sameynaysid way yaraanaysaa laakiin still waa maqlaysaa because ama awooyaashaadii ahaa reer baadiye ama waalidkaagii ahaa anigoo idinka weynahay waxaan nasiib u yeeshay inaan dugsis hoose dhexe iyo saraba aan af Soomaali ku soo qaato xilligii gacanka barisamaadkii sheekooyinka lagu qori jiray Soomaaliga iyo suugaanta maada suugaan la dhaanoo dhigi jiray iyo maada Soomaali dhaho marka sheekooyinkii waa naqaanaa inkastoo ay u badnaayeen hal dhinac oo dhinacna laga tegay Soomaalida waxyaabo waxay yaqaaniin runtana la isu sheego exclusion wax la dhaho markii film markii la fiirsanayo marka aflaamta ajnabiga fiirsanaysid iyo filmka Soomaaliga marka fiirsanaysid
filimka adiga iska arkaysid wuu ka xiiso badan yahay filim dad kale ay leeyihiin filimkaaga wuu ka xiiso badan yahay filim dad kale uu leeyahay marka horta taas waxaan rabaa inaan ka dhigto muhiimadda ugu weyn in horta aan inclusion samayno inclusion inaan samayno oo soomaalideenna gobol ka wanaagsan ma jiro sheeko ka fiican ma jirto talyaaniga hadda kahor waxay isku qabsadeen dialect midkee ugu saxsan say u wareegayeen waxay go-aankii ay gaartay inay dhahaan mid kasta wuu saxsan yahay marka anakana sidoo kale inaan dhahno qof kastoo Soomaali ah sheekadiisa way saxsan tahay muhiimadana ay tahay in sheekada la sameyn karo marka aan ku soo laabtay sheekadii baadiyaha ka dhaceysay horta sheeko in la sameeyo waxay u baahan tahay baadiyihii landscape dhul hadda markii carraweel ma dhine dhigdheer bohola xargaga maalda meel dhaay ay ka boodaysaa ay buubaysaa waxaa loo baahan yahay boholihii xargago dhulkii oo abaar ah loo baahan yahay markii ayada la dilo dhagdheer dhimatay dhulkii waa nabad ma dhigi jirno dhulkii nabad oo cagaar oo qurux badan loo baahan yahay marka sheekada markii la sameynayo first hadda fiiri sheekooyinka ay Hollywood ka sameeyaan Lord of the Rings iyo The Hobbit iyo sheekooyinkaas la sameynayo iyo Dune iyo waa sheekooyin fantasy ah waa sheekooyin oo qaarkood mythology ay ku jiraan qaarkood waa legends waxaa jira sheekooyin oo nologa sheekay jiro coming of age ah inaad beenta aad sheegin Umar Beenaal oo kale inaad beenta aad sheegin marka sheekooyinkaas la sameynayo waxaa badan lagu sameeyaa ay Hollywood waxay ku sameeyaan ay aadan New Zealand Lord of the Rings waxaa lagu soo sameeyay New Zealand why because the landscape ka wuxuu ahaa landscape ka turjumaya sheekada oo qurux badan marka sheekada intee ka dhacaysaa location ka yar ka sheegay way intee ka dhacaysaa sheekada in la iska sheegana ma dadkeena sheekada waa sheegnaa laakiin sheekada waxay u baahan tahay technicality badan waxay u baahan tahay in la qoro sheekadii as a film as a screenplay in loo qoro next waxaan u baahanahay wali aanan gaarin filmaanta hindida iyo filmaanta Hollywoodka markaa fiirsatid hadda tusaale waxaan soo qaadaa filimkii la dhahay RRR oo ay sameeyeen hindida qoladan Teluguga waxaa lagu sameeyay intaasoo xayawaan boqolaal xayawaan imagine xayawaankaas inaysan ahayn xayawaan sax ah kulligiis wuxuu ahaa CGI computer generated visual effects marka dhalinyaradana waxaa loo baahan yahay inay horta bartaan visual effectski bartaan wax kasta waa la sameyn karaa hadda xilliga la joogo ee ayda ah dhowr waxaan ka qayb galay oo seminaaro AI ah oo film sameynta ah xilliga hadda la joogo way ka sii sahlan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay dhalinyaradii inay noqdaan technically dad yaqaano CGI-gii waxaa kaloo loo baahan landscape-kii waxaa kaloo loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa isheeg screenplay-ga in la qoro Cabdiraxmaan Fiili su'aasha labaad marka aanu rabno inaan sheekada tusaale filim ka dhigno ama film ahaan loo qoro saa ognahay sheekooyinkeena aaday xoogaa suugaan ahaan iyo maxaa la yiraahdaa ama dhaqan ahaan waxay xambaarsan yihiin annaga ma ogtaa sawir ayna xambaarsan yihiin marka maxay kula tahay marka loo bedelaa filimka ma qaybo yar oo kamid ah bay tahay in la qaato marka masa iyagoo dhameystiran bay tahay inaanu filim ahaan u bedelno taas waxaan ula jeedaa marka qaar filmaha daawanaysa waxaad ku dhex arkaysaa sheekooyin meelo kala duwan laga soo qaato oo lagu dhex gudbinayo marka laga hadlayo sheeko iyo film ayaan rabaa inaan isku xidho waxaa la yiraahdaa horta film walba waa sheeko laakiin sheeko walba ma aha film marka aad doonayso inaad film sheegto waxaad u baahan tahay sheeko weyn inaad heshana waxaad u baahan tahay sheeko dhab ah inaad heshana waxaad u baahan tahay inaad xasuusan tahay dhaqanka deegaanka iyo nolol maalmeedka marka halka aad joogto ee aad tahay qof qora filimada marka aad tagto miiskaaga qoraalka ee aad suufka iyo qalinka iskor saarto haddii aad tiraahdo keligaa wax qor waxaa laga yaabaa inaad qorto wax aanan micno weyn lahayn laakiin haddii ay wax kula qorayaan
codadkii ayooyinkeen iyo codadkii awooyaal iyo codadkii dadka tuulada waxaa laga yaabaa inay noo soo baxdo sheeko wanaagsan marka halkaa la joogo haddii aanad garanaynin sheeko xariirtaada iyo sheekooyinka afka laga sheego way adkaanaysaa inaad hesho filim adduunyadu wax ka barato sababta waxaa la yidhaahdaa cinemaba waxa weeyaan waa hab wax lagu xasuusto wey marka haddii aan doonayo in aan idin xasuusiyo idinka yaraantiinnii waa inaan sameeyaa ama ku soo daraa ayeeyo carruurta ay ayeeyda u tahay uga sheekaynaysaa dhegdheer ama mataqaanaa arawelo kadib waad xasuusan doontaan laakiin aniga oo qoraaga ah haddii aanan garanaynin sheekadaas ma sheegi karo aniga oo garanayana waxaa laga yaabaa inaanan si wanaagsan aanan u sheegi karin marka mar kasta innaga waxaynala gudboon in aan baranno afkeenna iyo dhaqankeenna iyo sheekooyinkeenna iyo suugaanteenna kadib way noo fududaanaysaa inaan filim samayno inaan filim qorno inaan filim ku darno inaan maye si guud gebigeedaba ugu adeegsanno sheeko xariirta filim adduunyadu way isticmaashaa filimo waaweyn oo caana laga sameeyey sheeko xariir ahamiyadduna waxa weeyaan waxa ku duugan halkaas dhaqanka ama aaminaadaha dadku ay leeyihiin waxaa jira wax dhaqan la dhaho iyo wax caado la yidhaahdo marka haddii aan doonayo aniga oo Soomaali ah inaan ogaado waxyaabaha caadooyinka ay leeyihiin dadka Hindida ah marka aan filimkooda daawanayo waan ka daawanayaa hadday ruuxaaniyad ka hadlayaan iyo hadday masas ka hadlayaan iyo hadday wax kale ka hadlayaan sidaas si lamid innagana waan haysanaa laakiin waxaan u baahannahay inaan u holanno inaan sheegno marka waa lagu sheegi karaa dhexdiisa lagu sheegi karaa qayb baa looga sheegi karaa iyadoo dhammaystiran baa dib loo qori karaa laakiin sidii ay ustaadkii sheegayeen haddaan doonayno inaan arawelo dib ugu noqonno arawelo filimka marka la qorayo ama la samaynayo waxaa jira wax la dhaho adduun baa la dhisaa markaa filimka qorayso waxaad leedahay horta halkeen joogaa markaad halkii hesho yaa ku nool maxay aaminsan yihiin diintee halkan maxaa laga aaminsan yahay oo diin ah yaa ka taliya xukuma waxaasoo dhan waxay soo hoosgeli doonaan markaas in aan dhiso adduunka arawelo hadhowba markaa locationskii iyo costuumkii iyo laftirkooda dadkii ku habboonaa iyo mataqaanaa kastigii aan raadin doonaa marka waxaan is leeyahay waa shaqo adag oo u baahan maalgelin weyn iyo research inta aanad qorin filimka waa inaad tahay qof ogaalkiisa ama adduun aragiisa uu weyn yahay qof haddii aanu haysan xog ku filanna raadinaya oo siduu sheegayo baadiye annaga kuma dhalan anigoo baadiye kuma dhalan laakiin waa inaan haddana heli karo xogta uu hayo qof baadiye ku dhashay waa inaan heli karo marka runtii waa lagu sheegi karaa ha aad mahadsan tahay intaas haddaan ka gudubno oo sidoo xusay cabdulqaadir caad wuxuu xusay inaan farsamo ahaan ama technology ahaan inaan weli gaarin inaan sheekooyinkeennii aan maxaa la yidhaahdaa filimkii yani filan ahaan u samayno ama filimkii u bedelno taasoo tahay haddana sidii kuma day karno oo waa bilownay filim samayntii gudaha laga bilaabay dalka dibaddiisa laga bilaabay iyadoo madax bannaan marka tusaale oo kale marka laga soo tago inta tiiriyada ku saabsan tusaale oo kale dhegdheer oo kale iyo inta xoogaa ay ku jiraan maxaa la yidhaha waxyaabaha yani sawirka caadiga ka baxsan dhanka kale daraam ahaan soo suuragal maaha yani inaan u samayno tusaale kale hooyooyinkii iyadoo ilmi ugu sheekaynayaan ama qaab kaloo daraamayn yani qaabkaas kale maxay noqon karaan oo yani aan u mari karno haddayna farsamahaan haddaynan awood may xalal badanaa jiro horta weligaa allah caqabad la isma hordhigo haddaa caqabad is hordhigtid wax ma samaynaysid caqabadna haysatana ma leh waxaa keliyana haysto inaan wax baranno bes diyaar munaa inaan wax baranno
ya le dadka sameynaya waa anakoo kale soo maaha dadka sameynayo waa dhalinyaro just waxaa waaye waxay ku sameeyaan waxay bartaan abki waxay bartaan softwareki wax ku sameynayeen iyo creativitygoodii intaba waa samey kartiin waxaad samey karin ma leh marka horta caqabad ma jirto technicalityga iyo in la barto skillskii caqabad ma aha waxa keliya oo caqabad ah tan maskaxda ani sidaan u arka waaye marka dhalinyarada waxaan ka codsanayaa in la barto special effects marka ugu horeyso waxaa jiro blender waxaa jiro maxaa la dhahaa isheeg cinema 4Ds hala barto dadka qorayaasha marka soo haray qorayaasha waa inay noqdaan very creative marka qaarkood budgetka uu ku limit gareynayaa effectskan way ku limit gareynayaan waxaana rabtaa wax inaad samaysid so inaa inta dad isu keentid dab shidid goobo samaysid meel qurux badan aad sheeko ku sheegtid sheekadii marka maxay noqonaysaa mid afka laga sheegayaa maya mid ficil loo sheegaa la rabaa so mana rabno cinema is different from theatre is different from a novel or play ma fahmaysiin cinema waa visual we want to see it ani inaan wax arkaan rabaa haddaad itusi karin ha ii sheegin ma fahmaysaa marka si ay igu tustid oo kaamaradan waxay arkayso screenkan ka muuqanayo dadkana ay fiirsanayaan hadda cunuga Soomaaliyeed oo rabtid inaad sheeko u sheegtid ama ha joogo dalka ama dibadda ha joogo horta kuwa dibadda joogo way jecel yihiin anaa la soo joogay aad u jecel yihiin wax wadanka ah laakiin this is boring lagu dhahaa ma fahmaysaa kuwa dalka joogana waa sidoo kale hadda cunuga yarka oo xamar joogo markii uu aan u saaro maaragtay sheeg uu iska bedelayaa asoo hadda afka aqoon wuxuu leeyahay dhagdheer ko waxa jiro YouTube dhagdheer hadda ku jiro marka wax yar markuu fiirso iska bedelayaa because xiisa ma leh wuxuu u baahan yahay action wuxuu u baahan yahay dad buubaayo wuxuu u baahan yahay wax isdilaayo wuxuu u baahan yahay wax israacdeeyo wuxuu u baahan yahay graphics motion graphics yab leh effects u baahan yahay marka ani waxaan qabaa horta caqabadan ma hadda ma gaari karnaa la joojiyay within 3 months or 6 months or 1 year waa lagu baran karaa geedan marka hala barto waana la sameyn karaa budgetka markay imaato budget waa la helayaa sheekada agadaysa what is the message haddaad taqaanid sida loo gado screenplay fiican aad qori kartid pitching aad taqaanid is doable waa la sameyn karaa intaas kadib waxaan cabdiraxmaan filina weydiiyo haddii filimada aan sheekooyinkaas aan filmo u rogno oo yani filma laga dhigo oo la filmayo door noocay ka ciyaari karaan inay aqoonsiga ama sawirka bulshada Soomaaliyeed ay ama hidaha Soomaaliyeed inay adduunka gaarsiiyaan door noocay ka qaadan karaan horta ama cinema ama music ama qaybaha kale ciyaara dhaqameedka dhammaantood waxaa la yiraahdaa waa muraayadda bulsho laga arkay weeyaan adduunka waxaa jira wax la yiraahdo culture and diplomacy haddaad doonayso in aad bulsho gado oo aad dhaqankaaga gado oo aad ciyaarahaaga gado oo aad cuntadaada gado oo aad dharkaaga iyo hugaaga aad gaarka u leedahay gado waxaad u baahan tahay in aad adduunka tusto adduunyada kale dawladda ka shaqeysa waxaad aragtay in leeyahay scholarship baa qof wadan hebel dad u qaadanaya ma aha inay ku jecel yihiin inay ku caashaqsan yihiin ma waxa weeye waxaa ku duugan oo ka dambeeya oo background-ka u yaala waxa aanad cabiri karin markaad waddankaa tagto cuntadiisaad cuni doontaa dharkiisaad jeclaan doontaa dhaqankiisaad baran doontaa afkiisaa ku qasbanaan doontaa deetana waxaad u ekaanaysaa iyaga waxaad soo baxaya qof ama turkisha ama jaynesa ama jinni kale ah sidaasi la mid ah isagoon kuu imaanin marka uu sameeyo film ee uu guri walba yimaado waxaa ku qasbanaanaysaa inaad dadkaas barato nin turkish ah oo producer ah wuxuu iga sheekeeyey qaabkii dadka turkida ah
loo baray biisada turkidu waa dad dhaqankooda jecel oo cuntadooda iyo waxooda iyabay aad ugu dhegan yihiin maaha dad si dhib yar u xiiseeya xadaaradaha kale adduunka waa dad qab weyn weeyaan marka wuxuu yidhi markii dukaanno laga furay magaalooyinka waaweyn cidna uma tegin cidna mayna tegin deetana filimaan la soo sameeyey guryihii baa laga daawaday iskuulladii jaamacadii bay wiilashii ku daawadeen ilmo walba hooyadii wuxuu ku yidhaahdaa hooye waa inaad ii samaysaa bahashan biisadan waa inaad ii samaysaa islaanta turkishka ama taqaana biisa ma samayn karto deetana markaa waxay ku qasban tahay inay lacag siiso oo dukaanka tago oo soo cuno haddii inagu Soomaali ahaan mythology aan cinemaheena iyo musicgeena iyo masraxiyad ma haysano hadda theater ma haysano anigu waxaan ahay dadka qaba haddii sheeko la sheegayo oo film la samaynayo in laga dhexdhansado fanka inagu aan leenahay suugaanta aan leenahay cuntada aan leenahay dhaqanka aan leenahay kutri kuteenadeena iyo sheeko baraleedeen laftirkeena khuraafaadkana aaminsanahay iyo caadooyinka aynaan kala soocin siduu ustaadku sheegay oo deegaan walba wuxuu haystaa wuxuu aaminsan yahay u gaara ciyaar u gaara suugaan u gaara taasna inaan darisno oo aan baxsi samayno oo aan weelayno dibtana aan ku dabaqno cinema inta cinemaha ka shaqeysa kaliya ma khusayso adduunka waxaa jira dad ka madax bannaan oo researchers oo wax qora deetana u gudbiya ciddii markaa bedelaysa ee iyadu cinema ka shaqeynaysa oo dhahaysan iyo anagu waxaan hayaa deetana dee adigu shaashada ka soo muuji marka haa waa loo bedeli karaa aad u mahadsan tahay waana rajaynayaa in sheeko xiriirooyinka iyo sheeko dhaqameedka iyo nooc kastoo sheeko aan leenahayn aan bulshada gaarsiin doono aan caalamka gaarsiin doono annagana hadda xilli waxaynu maraynaa inaan caruurteena loo sheekaynin ama aysan jaanis u helin sheekooyinkooda anna markaan yara dhegdheer iyo sheekooyin cabsi wax la-aan bay dhaantaa xataa iyada lafteeda ugu yaraan bay dhaqankii waad baranaysaa laakiin hadda waqtiga oo gabaabsi awgiis waxaan intaas baan kusoo koobaynaa barnaamijka aada intaydan kicin ها وكوديبيا لكن هل سؤالي لبس سؤال كليه لبس سؤال dhegeystayaashan sii doonaa wax yar oo announcement ah masrax productions waxaan geynay filmaanta Soomaalida African ka bilawnay East Africa marka saddex film ayaa waxay noogu jiraan tartan competition taxanihii la dhahay shabakada iyo taxana la yiraahdo cilaaj oo ninkan qoray anigana aan director ka ahaa iyo short film la yiraahdo Gohado waxa kale oo taagan dhalinyaradii Soomaalida jilayaasha ahaa oo loo doortay best actors and best actresses so laba gabdhood Soomaaliyeed Asma maxalla Samara Queen gabadha dhahan iyo Hamdan Nasir wiilashan waa Yusuf Islam iyo Ababla marka waxa tagtiin SIF Zanzibar International Film Festival fadlan u codeeya filmaanteena u codeeya aktaradena u codeeya si aan u gaarno maaragtay sheeg masrax ka sii weyn ka